kursiga Cabdirasaaq Khaliif waa la taabtaan waxa weeye Soomaaliland waxay ku dhisan tahay saami qaybsiga Soomaaliland ku dhisan tahayna qof taaban kara ma jiro gobolka Soolna saddexda dhardhaarkaasi ku leeyahay cid taaban karta iyo cid ka hadli kartaana ma jirto Allahumma wafiqna bima tuhibbu wa tardahu anna اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الصومال واحد هذا أما عربت وتر هذا إذا بغبغت الناقة فكيف كان البعير الصومال واحد هذا قيل الدقدي سدر درسي أرك سلم محمود وحن ليه قف كستو قرال له أما عقل له أما إنه الحجة ودك كهيسا ومرأي وأجيه حالة ودك مرأيه دينا دقالة دينا عالم كأ وسبعة ديني عالم كمانتا وحينو كفاني تريد لما حالهم به ديمقراطية دي دور الشو إيو نبت قليلة وحن ليه وكل عليا mid weyn mid yarba hal laga taliyo wadanka iyo dantiisa wixii wadanka la jecel ka leeyna hadugtaan halkay maanta wadanku marayo waxaan gudoomiyaha leeyahay guurtida waxaad fashay waa in faatakum waan arkaynay kartoon aad bahalkii ku soo rideen waan arkaynay inuu qoyay maanta mar haddii aan dan wax kale oo dani aanay jirin ilaahay ilamada khayrka qaba ee baarlamaanka waynu yaabanayno sheekh iyo shariif baxal weyni oo madaxweynuhu waa kii ergooyinka dhammaan ahaantoodba ama salaadiin ahaadeen ama baahimshir ahaadeen ama culimo ahaadeen intiiba diiday xalka kaliya aynu hayni waa in ilamada baarlamaanku intay keeneen waxaan leeyahay gudoomiyaha xeerka lagu soo gudbiyay waa inaad horgeysaa golaha guurtiduna ay iyagu ka doodaan waan arkaynay guurtida hadashay ee celintaad celisay xaqna ma lehid sharcigana dhigi maayo laba kala madax bannaan golaha wakiilada iyo golaha wixii nabi xeerjintiinu qolo walba way madax bannaan tahay marka waxaan leenahay xeerka horgee golaha guurtida waxaan kula halkan ka cadeynaa mowqifkayga waxa weeye dalka haddii la jecel laga leeyahay rabitaan qof ku shaqayn maayo saasaa rabaa hal yeelan ku shaqayn maayo wuxuu ku shaqaynayaa gacmaha wada jir bay wax ku gooyaan wuxuu ku shaqaynayaa talaq in laga yeesho marka kordhin taa lagu baaqayo ee la hor cararayo waxa la wax ka jira ma jiraan haddaan la soo waafaqsanayn waxaan halkan oo kale fariin uga dirayaa qolada ururada waxaan leeyahay anagu de xalkii aanu haynay idinkana idin dantaha waa ka golaha guurtida loo gudbiyay xal kale maanta nin ii sheegaya oo jiraana ma jiraan inamada kamida wakiilada baarlamaanka kamida een xalka hayn xalkii la hayay diidaya waxaan leeyahay war wadanka xal uma haystaan annagu idimaanaan dooran inaan hodheelada ka cashaysaan oo qadaysan oo cid urursataan waxa la idin doortay cod dad ba ku fadhiyaan waana dhaarateen inaad ka talisaan baarlamaan baa la yiraahdaa hodheelada idin furan waxa idin furan inaad ka dhex doodaan baarlamaankiina oo si timaadaan waxaan dhammaanayn ummadda Soomaaliland iyo shacbiga Soomaaliland ugu baaqaya dantu waxay ku jirtaa nabadgelyadeena dantuna waxay ku jirtaa midnimada ummadda waxaan leeyahay hal laga taliyo taa si suurtoobile qof walba ku cadda halka wadanku marayo qof walba ka tali si ummadan midnimadeedu u jiri lahayd wixii kala kaxaynayana loo yeesheendo madaxweynena waxaan leeyahay adaa gacanta isugu haya
inaad legacy ka tagto iyo inaad tiraahdo dookhayga lagu shaqeeyo oo waddankuna halkaa maro waxaan leeyahay madaxweyne ku soo noqo sharciga kanada waddankan aad leedahay dookhayga lagu maamulo waxaan arkayay odayaal ka soo jeeda gobolka Sool oo ka cabanaya inama hadlay oo kursiga golaha gudoomiyaha ka hadlay marka hore waxaan leeyahay xaal baan iska siinay eraga yararka ka soo yeedhaan adeerka oo ahay ana xaal iska siiyay talabaadna waxaan leeyahay kursiga Cabdirasaaq Khaliif oo la taabtaan waxa weeye Somaliland waxay ku dhisan tahay saami qaybsiga Somaliland ku dhisan tahay qof taaban kara ma jiro gobolka Soolna saddexda dhardhaarkaasi ku leeyahay cid taaban karta iyo cid ka hadli kartaana ma jirto odayaashana xaal ana iska siiyay halkaas ana ku dhaafaysaa inamada yararna waxaan leeyahay war waxaydan waxba ka ogeyn badeeda gelina anagu markaan dooranayno shaqo kale aan u diranay shaqada aan u diray ma haysan shaqo kale haysan assalaamu calaykum